بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبائي في الله، ودراسينتي أن كسمينيني بقولك حديث وأنو أغريني شنشن حديث، وحانو سوغاني درسيجي صدحات، وحانو كبلا بين حديثك كوبية طبنات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. حديث كان بخاري يا مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم باوحيري: حق المسلم على المسلم 5: مسلمكو حق وكليهي walaalkiisa kale ee muslimkiihi waa 5. riwaayadan saas bay tilmaamaysaa. riwaayaad kale ayaa jira, laakiin riwaayadan waxay tilmaamaysaa muslimiintu xuquuqda isku leeyihiin waa 5. muslimku waa qof walba oo laa ilaaha ila allah yidhi, lawnkuu doono, midabkuu doono, luqaduu doono, waddankuu doono, qaaraduu doono ha joogo. laa ilaaha ila allah baa laga wadaa qofka ay idin kulmisay ayaa muslim la yidhaahdaa. taas waya midaan doonayno awlaadeenna iyo caruurteenna inaan ku tallaallo oon barno. muslimiintu inay walaala yihiin. inama almu'minuuna ikhwatun, sida uu rabbigeen leeyahay jala jalaaluh. xaqu lmuslimi cala almuslimi 5. haddaa muslimiintu xuquuq badan bay isku leeyihiin, bal xadiidkan aanu aragno 5 u tilmaamayo. 1: raddu salaam, salaamta marka lagu salaamo inaad celiso oo wacalaykum assalaam aad dhahdo. raddu salaam xuquuqday muslimiintu isku leeyihin waxaa ka mida marka koobaad inay isa salaamaan. oo haddaad aragto qof muslima ama garo ama ha garanine, haddaad calaamadaha iyo aahaarta islaamnimadaba ku aragto, xaq uu kuu leeyahay xuquuqda waxaa ka mid a inaad dhado assalaamu calaykum. 3 qaab baad salaanta u gudan kartaa. inaad dhado assalaamu calaykum, salaantana xusuusta tanwiin iyo tacriif labadaasay ku bannaan tahay. inaad assalaamu calaykum oo tacriif oo shamsiye aad dhigtoo dhahdo, alif iyo laam aad geliso dhado assalaamu calaykum, ama inaad dhahdo tanwiin wa salaamun calaykum. labadaa xusuusta marka koobaad waxaa kuu bannaan inaad dhahdo assalaamu calayka, ama assalaamu calayka waraxmatullah, ama assalaamu calayka waraxmatullaahi wabarakaatu. calaykumna waad dhihi kartaa xataa qofku isagoo keli ah. mid kastaba ha noqotee 30 ajir baa laguu qori. qaala tabaaraka wa tacaala: waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha. haddii idin salaamaan oo haddii laydin salaamo, midii mid lamida u celiya ama ka fiicnaadoo 3duba dhammaystira. salaanta inaad celiso waajib bay kugu noqonaysaa. waa meesha culummadu ay dhahaan, tafaasiisha meel rabi inaan sii galo, raalli noqda, waxaan rabay inaan si kooban u akriyo. raddu salaam, horta waa in salaanta aad radidaa. xuquuqda aad qofka muslim ku leeda waxaa weeye goortuu ku salaama inaad dhahdo wacalayka assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu, ama wacalaykum assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu, ama wacalaykum assalaam. hadba sida adugu ajirka aad u doonayso biidn illahi tabaaraka wa tacaala. raddu salaam, inaad salaanta u celiso wacalaykum assalaam dhahdo markii lagu salaamo. taa waa qodobka koowaad oo muslimiintu isku leeyihiin. qodobka waa la dayacay. hadda qofka waxaa laga yaabaa inuu isku salaaminba lasgara maro.
حتى مسلم إسكداي لما الصومالي بالأرك أيوة أسقر مرة خلاص خطروي أما السلامتي دلن يردو إنتي كتاقين إلي هاي إيو وحال إسكو سلامة أن إسلامكو كينين إلا إسكو سلامة أول كلمة كوبادة مسلمين تو لدونا إلي إسكو باللابان والسلام عليكم وأنا كلمة الماميسا نبت قليو حورها قوان كون نبت قلي أو عرضي قادية شرفت هذا كون نبت قلي أو نفت هذا كون نبت قلي ويا معنى هذا محايا لإلهي بذو السلامة مسلم كنا واقف نبت قلي وصاحبه السلام عليكم قضب كلبد وعيادة المريض قفك حنوسا إلا صوبه وحقوق المسلمين تسكويين هدو قف مسلمة جردو هدو قف مسلمة حنوسدو حق وكولي يهي مسلم ككلو وإنا صوبه قطع أرنت أمانت من نوغو جرتا ولما دادك قربها أسوكعي أما أسوكعي بانو جيدا أرنت آد بأقول ليتا صح وإسدوغان وارن جنازة والإسراع واصح لكن بوقشدو مركورو وايرتاي قضبك اوغادا وحقوق اسكولنا مسلمين وعيادة المريض المهنا وإن برنامجكو آبوه أما هو يدو حنوسان تهي إلا بوقان كرو آبا سيتهي هو يسيتهي حالي ما حنوستي ما سيحتي عرورتنا من برنو من نقانو ولذلك هذا ولو هو يدا ويجي تابو لي هذا وحنوسان dan kamale kubad buu iska aadaya gabadhina waxa laga yaabaa inay filin iska daawanayso qodobka saddexaad wattiba'u aljanaiz qofkii xanuunsanaa sawma garanaysaan hadayba geeri ku timaado ama qof kalaba hada ay qof hadii geeri ku timaaday xuquuqda uu qofka nagu leeyahay waa inaanu janaazadiisa raacno waa inaan dhaqno waa inaan kafano hadii kafanaan weelayno kadibna waa inaan qubuuraha muslimiinta ku duugna وإنا كنت كنو جنازة وإنا راعنو أجر وين بين هذا اتباع الجنائز بالليل هذا رجع أي أرنتم كنا عيسايو ومعطية حديث كذي وحيلاذا صحيحها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا الضمر كالنهي وأنا لقرر بإنا جنازة الراعنو لكن لو ما أتكينن صدرات الجنازة رجال الربا إلى الراعان واتباع الجنائز قضبك أفراد وإجابة الدعوة هدي قف وليمك ويرو أما وانقل عقيقك ويرو أما أراسك ويرو أما الدعاء كلا برنان أو شرعك أوسن ريبن أو كويرو إلى الأجيبتو خاصة عقيقة إيا وانقلك إيا جورك لبضوة وإجابة الدعوة ولبا أحاديث قيبك بذا وحيت الماميان قفك أراس لوغيرو أون أجيبين إنو النبي محمد عاسي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لما صدح قضب أهلك كي يرتابط مركز أجيبيسو وإننا ماشا معسي أولين هذا معسي تالا وديدي كرتاه هذا معسي الزولين كرتانا واجب يكون نقولين أطرت هذا خفيفين كرتنا واجب يكون حقي والله جاي بين السنة كون نقطه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يدب كوين كذا عينا حرام بين نقول إصابة منكر كلفتيسي منكر كوين هذا كذا عينا حرام بين نقول إصابة متى أروسيا إن هذا نقيم إنه عجائب دي وتقرن إصابة أروس ليه كرتبة ولا تيكرا ويريه وقوبك عيار ومعصي وموزك وهضلو وفنانين واختلاط وضدك وقاقاون وحاسو وأيضا الله ضاها يوصى عدن به سأفرت شنتها بين الصبح نمو لحظة الصبح نمو ظلم بضن باكتشرية معصي بضن مرقوفك دور لو كمتشرو الرسيدة ما أنت دعا إن شاء الله كمت بابا يا رجينا هذا الساعي تهي وإن له بصدق أو وحي ونكسر لسكو عاوية وإجابة الدعوة قضبك أوضا بيو شناد وحقوق المسلمين تسكولي يوحاكمدا وتشميت العاطس قفك هدون نسو هاتش ودونه والحمد لله إلهه إلا أنه يرحمك الله
كي الحمد لله إليه اللي صادين أوضو يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن وإنه الحمد لله إله صدح شيروحي كبضا هدوه اللي صادنا شفاك الله وعافاك الله بالديه محايا المرض يا حنون يا صنبور بقبا. لكن وحي صدح كويك بإذن الله الحمد لله هدوه وهذه يرحمك الله أصلا محولي يهديك الله والتربية لدونه أرضا إلا برو عرورة إلا برو والد كينو برو غير كنا إنو نقن وكذلك. حديث كذا بيتبنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. حديث كان بخاري يا مسلم بصوصار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحوليه نبي قايل صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة قفك جنازة يقف انتي راعة قفك جنازة يعني قف انتي قفك حاضرة ماشي أي تالو مسجد ماشي لقول دقي ماشي دونت الله كدغه حتى يصلى عليها انت اللي قلت كان هيو لا جوغي بمعنى ولدت كذي dadkii ku tukaday buu kamid aha falahu qiratun hal qirat buu leeyahay qiraadka gadaal baa ka sheegi doona ii xaj laakiin waman shahidaha qofka janaazada raaca hatta tudfana inta laga aasayo godka laga gelinayana la jooga falahu qiratani laba qiraad buu leeyahay kii horiya kan way nabiga sallallahu alayhi wa sallam saxaabadu lafdigan kelimada qiraad la yiraahdaa ku adkaatay sida laga yaabo hadda markaan sheegaynaba dadkan horay u aqoonin ay ugu adkaanayso qiraad maxaa la yiraahdaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam markii la weydiiyo la yiri wamal qiratan qala mithlu aljabalayn al'azimayn wuxuu yiri waa laba ajir oo buura laba buur oo waaweyn la eg idan qiraadku maanta halka markii la joogo waa ajirka iyo xasanaadka iyo thawaabka qofka looga qorayo meydka uu xaadiray ee uu ku tukaday haddana uu aasay laakiin qiraadka asalkiisu waxaa la yiraahdaa lacagta ka jajabka ah 10 iyo 5 iyo qadaadiicda ayaa la yiraahdaa walidaalika nabigu markuu Makka joogay sallallahu alayhi wasallam uu yaraa wuxuu yiri ariga waxaan ku raaci jiray qaraatiid yani lacaga shilimo yar yar baan ku raaci jiray oo googo ah oo sarifka oo birta ayaa qaraatiid la yiraahdaa laakiin halkan markii la joogo oo xagga cibaadada qiraadka waxa laga wada ajir iyo xasanaad iyo thawaabka weeye waxa laga wada araytu marteen xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin ajirka qofka raaca qof dhintay ila lagaga tukado ila laga aaso idan ajirka labada ajir ee waaweyn يانا إصلافين بإذن الله تبارك وتعالى. أما حديث كصدحية طبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. حديث كبخاري يا مسلم باصوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوجلي سوى النبي أخلاق ليسة إيا دقن كيسة نوغش كينيا أننا إنا كديا أننا لقد دوني أجدد دين تأرنب ودقن وكديشو وأمر قادشو وكهرد وحي لغار ريبئات كهردو ولذلك دقن كنبي أن دقيسنو أنا عليه الصلاة والسلام أنا بربر دقنا مانتا إن بدنو إناقا نقميدون أنو أن كميد أهي بل دقن كأن حق الراشنك أن بربر دقنا أبو هريرة أو نبيك النوت الماما يوحوليها أما نوصفين صلى الله عليه وسلم ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيك ما عيبين
mana dhaleecaynin waxna kama sheegin طacaaman qatu raashin weligii nabigu waxba kama sheegin raashin wax la cuna ha noqdo wax la caba ha noqdo wax qallalan ha noqdo wax qoyan ha noqdo shay raashina wax la kariyo ha noqdo wax iska bisil ha noqdo raashin wax cunaha la mariyo dheh cunahaba wax la mariyo oo la cuno nabigu weligii ma ceebaynin weligii ma dhaleecaynin waxna kama sheegin calayhi asalaatu wassalaam haddii loo keeno laba mid unbuu samayn jiray in ishtahaahu akalah hadduu nabigu sala allahu alay wasalam uu jeclaado oo naftiisu ay jeclaato oo naftiisu ay ishtahayse u doono akalahu waa cuni jiray si hanii'an mariyan buu cuni jiray si qiimo badan oo naftu ay jeceshahayoo shukrin nicmada allana ay ku jirta buu cuni jiray calayhi asalaatu wassalaam wa in karihahu taraka hadduu nabigu naftiisu ay nacdana nabigu asagoon ceebaynin buu iska riixi jiray wuxuuna dhihi jiray hadda ma cuni karo waxba kama sheegi jiray calayhi asalaatu wassalaam haddaba caruurteenna maxay nooga baahan yihiin inaanu nicmadan aan barno maanta waanu caynaa kolka hore waa la urin marka hore markaasaa la ceebaynayaa uf baa laleeyahay bacda madow baa lagu guri qashinkaa lagu guri allahu akbar dadna gaajo iyo baahi ayay u dhimanayaan oo u baaba'ayaan caalamulislaami marka akhlaaqda aan baranno oo dhaqanka aan baranno oo israafka aan iska dayno oo cuntada la daadinayo aanu iska dayno kolka hore cunto kooban ha la kariyo haddii la karin waayana faranjeerka intii la gashado ciddii faranjeer bale cuntada intay taalayaan ilmaha cunto kale la barin oo yaan la siinin laakiin ilmihii in la yidhaahdo maalin walba cuntada ha la daadiyo khalaas khatarteeda wey maa caaba annabiyu sala allahu alay wasalam طacaaman qatu in ishtahaahu akalah wa in karihahu taraka marka nicmada ilaahay lagu shukriyo nicmada ilaahna yaan lagu kufrinin haddaanu shukrino ilaahay baa noo ziyaadin arsaaqada lain shakartum laaziidannakum haddaan shukrin weynana walain kafartum haddaan kufru nicam haddaan ku dhacno ilaahay wuxuu leeyahay ciqaabkayga iyo cadaabkayga iyo naqsiga aan xoolaha idinka gelinayo ee barakada laga qaadayaay waa mid muxaqaq oo dhacaysa xadiidka 14 can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal xujibat annaaru bishahawaat wa xujibat aljannatu bilmakaarih muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh wuxuu leeyahay abu hurayra nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam xujibat annaar naarta waxaa lagu seereeyey naarta waxaa lagu hareereeyey naarta waxaa dhinacyada laga dhigay bishahawaati waxay naftu jeceshahay zinadii khamradii xaaraamtii oo dhan waqti dhammayskii filimadii xaaraamta ahaa wax alla wixii naftu itibaacu lhawaa salaad la'aantii soon la'aantii zaka la'aantii wax alla waxay naftu jeceshahay oo dhan ayaa lagu hareerayey markaasaa naftu markay wixii samaysaba naartii bay marka gelaysaa meeshii inanay waxaa soo dhaaftay wixii ku hareeraysnaa naarta ayaad soo dhaaftay marka qofka waxaa weeyaan boos buu naarta ku yeelanayaa nacuudu billahi tabaaraka jalla wacalaa wa xujibat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu hareereeyey oo lagu seereeyey oo mooro ay u tahay bilmakaarih wax alla waxay naftu necab tahay oo dhan waa weysadii waa salaadii waa xaaraamtii oo laga tago waxaasoo dhan kulli wax alla waxay naftu nacayso oo dhan ayaa lagu hareereeyey markaasaa qofkii waa ka fogaanaya nafti baa nacayse salaadii buu ka tegayaa weysadii buu ma weysaysan kara buu leeyahay hurdadii buu sii wadanayaa soonkii buu ka tegayaa ma soomanaan kara buu leeyahay intaas oo saacadood ma soomanaan kara buu leeyahay xajkii ma xajin kara buu leeyahay wahaakada nafta jannada waxaa lagu hareereeyey wax alla waxay naftu ay nacayso oo dhan allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa anigiyo idinkaba inuu nagu anfaco axaadiida rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam inta aanu kaga kulmayno درسك كان حقا وحان كجتجيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله